assalaamu calaykum saaxiibayaal maanta ayaa Bufallah iyo mid ka mid ah challenge-yada aan ugu jeclahay uu soo gudbiyey YouTuber-kan aad ayuu xamaasad badan yahay runtii waxaan sugaynaa aan u gudagalno muuqaalkiina maanta qofka ugu dambeeya ka baxa goobaabinta wuxuu ku guuleysan doonaa isagoo aan noo dhammaystirin hadalka waxaan arkaynaa tartamayaasha oo badboodaya mar kale hadalkii ayuu sii waday balse qosol ayuu uga baxay waxaan arkaynaa Bufallah una salaamaya kadib wuxuu noo sheegayaa inuu sameynayo challenge ay sameeyeen YouTuber badan markiisana uu sameynayo tartamayaashii ayuu ku laabanayaa iyagoo soo dhaweeyay waxaana tartankan ka qayb qaadanaya 11 tartame 1 2 3 qofkii ka baxa goobaabintan wareegsan wuxuu ka baxayaa tartanka balse durba waxay bilaabeen inay ku jeestaan wuxuuna u sheegayaa in tartamuhu mamnuuc ka yahay inuu fariisto inuu wax cuno ama cabo si lamida waxa mamnuuc ka ah inuu aado suuliga haddii uu doonayo midkoodna waa inuu ka baxa tartanka waxayna dhahayaan bal ka waran haddaan tukanayno Allah taasoo ay Bufallah ku noqotay habkii baa juqda gabay wuxuuna ka aruurinayaa sidoo kale telefoonada oo dhan wuxuuna noo sheegayaa in meesha ay yaalaan kaamirooyin waliba haglo kala duwan xitaa kaamirad ayaa taala cagaha tartamayaasha hoostooda haddii ay si shilay cagtaada uga soo baxdo goobaabinta waxaad ka baxaysaa tartanka wuxuuna markaan u sheegayaa qofka ku guuleysta tartanka inuu helayo lacag dhan $50,000 Allah taasoo iyaga ku noqotay lama filaan Axmed ayaa dhahaya xitaa libax igama saari karo goobaabintan wareegsan waxaan arkaynaa tartamayaasha iska baashaalaya Saalim oo kaamirada ayaa u imaanaya Bufallah isagoo ku dhahaya Xasan way raaxaysanayaan saaxiib Bufallah ayaa ugu jawaabaya iska daa waa 5 ilaa 10 daqiiqo ugu horeysa bal aan aragno 3 ilaa 4 saac ugu horeysa Saalim ayaa dhahaya waa sax wax yar baashaalaan 30 daqiiqo kadib waxaan arkaynaa Bufallah u imaanaya tartamayaasha isagoo ku dhahaya waad baashaalaysaan be waxayna ugu jawaabayaan madagaal ayaa doonaysaa Bufallah ayaa dhahaya igaga jawaab su'aasha ma dareemaysaan miyaa jawiga kuleelkiisa Yusuf ayaa dhahaya waan dareemaynaa balse 50,000 ayaa meesha taala Bufallah ayaa ku dhahaya waa idin qaboojinaya una baxay isagoo wax doontay isagoo bilaabayba inuu buufiyo harbaantii buufi cayayaanka ma maqal jirtay waa saas kor iyo hoosba uu ka buufiyay ilaa ay ka qufaceen ka reebin isaga iyo xitaa walaalkiisba meesha ayaa noqotay mid mugdi isku bedeshay yaqiiq Allah jawiga markii uu caadi ku soo laabtay Bufallah ayaa ku dhahaya saaxiibkiisa eeg saaxiib tan waa inaa sameeyaa waayo waxay u muuqdaan kuwa nadiif ah balse isla markiiba waxa uu jawaabay Yusuf oo ku dhahaya meentaas ay ka ahayd waa inaad si fiican u samaysaa halka Seefna uu ku dhahayo waan joogaynaa halkaan dhammaantoodna waxay taagan yihiin lacagta noo soo gacan gali hanjabaad badan kadib heer waxay gaartay in Yusuf uu candhuf ku agtufo Bufallah taasoo Bufallah dhiiga ku kaysay wuxuuna soo qaatay toogashadan isagoo ku hadlaaqaya way ugu jeesteen wuxuu bilaabay inuu toogto wax yar kadib waxa ku soo dhacday fikrad ah qofkii toogashadiisa ay haleesho saasay uga baxaya tartanka wuuna sii waday ilaa xarfaankan ay ku dhacday wulii toogashada saasna ay uga baxay tartanka Abu Sheekha ayaa ka dalbaday Bufallah inuu siibiyo balse wajigabax ayuu kala kulmay Bufallah isagii xirtiisaba isagoo ku siiriyay biyaha Bufallah ayaa u soo bandhigaya shamlaan biyo ah wuxuuna u sheegayaa qofkii soo gaaraya iska leh harbaantan oo iskarabsanaysa ayaa lugaha ka qabanaysa saaxiibkoodan maadaama xeerku yahay in jirka inta kale banaanka la soo bixi karo balse lugaha maya ugu dambeena way ku guuleysteen iyagoo dabaaldeg qabsaday farxadda biyaha ay heleen dartood qof kastana kabashadiisa ayuu helay Bufallah ayaa dhahaya ma aanan filayn kan shaamburtan ay sameysteen saacad kadib xarfaantii ayaa mar kale ka dalbaday Bufallah biyo taasoo isaga ka xanaajisay wuxuuna iska dhigay wuxuu cunayay wuxuuna qaatay qorigii toogashada halka iyagiina isku daba dhuunteenba iyadoo Saalimna uu ka dalbaday Bufallah inuu buug naxariista u yara eego balse ku bilaabayba toogashadii waxayna ku noqotay daqiiqado boodbood mooyaane xaal kale uusan jirin dhankooda ilaa qaarkood isku tunteen ilaa la yiri warka daaniyahow wuxuuna ku yiri biyo dambe hay weydiinina iyagoo raaligelin ka bixiyay ficilka ay sameeyeen waxayna markaan bilaabeen iskaalmeesi Saalim ayaa dhahaya maxaa halkan ka socda saaxiib Bufallah ayaa dhahaya iska daa saaxiib waxay imaanaysaa waqti ay gaajoonayaan ayna bilaabayaan midba midka kale inuu cuno qadar yar waxay siisa kadib waxaan arkaynaa Bufallah oo ku dhahaya Yusuf maxaa dareemaysaa waayitaanka $50,000 balse candhuuf ayaa loogu jawaabay haddaba waxaad is weydiinaysaan maxaa ka saaray Yusuf tartanka intii uu tartanku socday isaga iyo Sayf ayaa ku dhacay dhulka waxaana shuruucda tartan ka mid ahaa inaan fadhi la ogoleen saas daraadeed labaduba way ka bixeen tartanka Daawud ayaa dhahaya waxaa rabaa inaan bedelo nolosheeda isagoo ku jijeesay Yusuf sidoo kale dhammaantiin $50,000 oo idin qiyaami kara ayuu ku dhahaya saaxiibadiisa waji male wuxuuna mar kale ku jeesanaya Yusuf Jalaal isagoo ku dhahaya weliba waxaad ku fikiraysaa inaad bedesho noloshaada taasoo aad loogu camirtay harfaankii Yusuf ahaa Bufallah ayaa weydiinaya tartamayaasha ka warama jawiga waxayna ku dhahayaan xawaayar uu fiican yahay laakiin alxamdulillah Bufallah oo dhag la qabtaan lahayn ayaa harfaantii ku bilaabay inuu buufiyo dhinac walba uu ka maray
ilaa ay ka qufaceen. Abufallah ayaa u imaanaya Yuusuf oo halkan iska fadhiya isagoona ku dhahaya kama qasnabe intaan caadihiina waad cunaysaa balse biyo ayaan ugu siiriyay Abufallah wuxuuna la soo booday maana ka saaray tartanka harfaankan ayaa ka saaray laakiin Sayf ayaa dhahaya anigu jawigu ii saxan yahay. Yuusuf oo isqeyraysiinaya iyo Sayf iyo Abufallah halkan ay iskaga baashaalayaan. 2 saac kadib gobolkii ayaa dhacay waxayna tartamayaashii dhahayaan walaah lama filaan siinaya Abufallah waxayna sii raacinayaan inab noo keenniyahow balse waxaysan filanayn ayaa meeshii yimaaday mar kale ayaa la buufiyey. Abufallah oo shaqada soo dhamaystay ayaa dhahaya waan raaxaystay. Mid ka mid ah ku dhawaaqaya neefta. Abufallah ayaa dhahaya ma mid idinka ka mid ah ayaa qaba xanuunka neefta ha igu ciyaarine mar kale iyo buufis kale. 2 saac iyo bar kadib waxaa soo haray 11 tartame. Abufallah ayaa noo sheegaya dhaqaaqiisa xiga wuxuuna soo qaaday iPhone kii ka baxa wuxuu ku guuleysan doonaa iPhone-kaas waa noocee iyo su'aalaha ay ka mid tahay ma ka baxa ayuu bilaabeen oo durba kuwa u hanqaltaagay iPhone-kaas balse ugu dambeyn harfaanka buuran ayaa ka baxay tartanka qaatayna iPhone-ka. mar kale ayaa Abufallah oo qoslaya kuna bilaabay magaca Alle iyo toogasho kale harfaankan ayuu durba ku dhacday saasana ayuu uga baxay tartanka. Abufallah ayaa ku dhahaya marka xiga saaxib insha Allah balse Yuusuf oo ka faa'iideysanaya dhahaya isagana noloshiisa ayuu sidoo kale rabay inuu bedelo. Abufallah ayaa markaan bilaabay inuu weydiiyo hal su'aal oo ah maxaad ku qaban doontaa haddii aad ku guuleysato lacagtaas. Daawud oo ugu horeeya ayaa dhahaya haaf dhan ayaa tabarcad ku bixin. Abu Sheekha maxaad ku qaban adna haddaad guuleysato wuxuuna dhahaya qof kasta casho ayaan ku casoomi. Daawud ayaa dhahaya cashadu waa wax ka yar 20 Kuwait diinaar halka Cisaam uu dhahayo habeenkii ugu dambeeyay ayaana casuuntay. Abu Sheekh ayaa dhahaya aan idin dhameystiro. Daawud ayaa dhahaya macasho kala kacsan miyaa. Xasan ayaa la weydiinaya isla su'aashii wuxuuna dhahaya haddaan guuleysto qayb ayaan tabarcayaa insha Allah sidoo kale waxa ka fikiraya guur. harfaankii hadalkii tabarcaadka ayaa lagu maadeysanaya oo Daawud wuxuu leeyahay ani been ayaan sheegay waxba tabarcaad ku bixi maayo. kana markii la weydiiyana ku lahaa kuwan waa iskaga baxaya dhammaantoodna assalaamu calaykum ayaan dhahaya. Axmed ayaa dhahaya isagana marka hore ii dulqaata qayb tabarcaad ayaan ku bixin kabacdina waan ku guursan kadibna xaaskayga ayaan kaxayn waxaana booqan qoyskayga sidoo kale adiga ku ilaawi maayo oo hadiyad ayaan ku keeni. kan xiga waa Yuusuf kale waan guursan la soo boodiyaa. Abufallah ayaa ku dhahaya waxaana ka galay Allah wax kasta inay ilaacay leeyihiin. intii ku camirshada ay socotay ayuu hal mar Abufallah la soo booday qof ayaa gambaday waxaana dib loo fiiriyay kaamirada oo bal xariibka intuu qosliyay ayuu qosl dartiis dhulka fariistay saasana uga baxay tartanka. Abufallah ayaa u imaanaya kadib eegidiisa kaamirada xundahaya maya ma diidi karno maadaama kaamiradu cadeysay wuna ka baxay. Abufallah ayaa u sii raaciyay marka xiga ayaad ku guuleysan insha Allah. Yuusuf kii lagu camirtay ayaa dhahaya xitaa ma uusan sheegin wixii uu ku qaban lahaa lacagtaas wayna qoslayaan dhammaantood. Abufallah ayaa isaga ku dhahaya bal adigu maxaad ku qaban waxaana lagu oranaya waxba kaama gelin. Abufallah oo ay ku dhacday ayaa dhahaya war maxaa naftida xaaladaas oo kale u geliyay. 3 saacadood kadib Abufallah ayaa noo sheegaya bal eega dadaalkan dhalinyaro kaamirada eeg tanna eeg sidoo kale tana balse Daawud ayaa dhahaya Xasan tanna eeg waaba Axmed oo u fariistay in sawir laga qaado waaba is ilaawi runtii. qof kastana lama filaan ku noqotay oo dhammaantoodna madaxa weynaaday. saasana ayuu nooga baxay tartankii waxaana arkaynaa hadalkii uu hore u yiri ahaa inuu qayb bixinayo guursanayo booqanayana qoyskiisa sidoo kale hadiyad uu siinayo Abufallah. Abufallah ayaa ku dhahaya waxaad rabtay inaad guursato Abu Cantarow wuxuuna dhahaya wax kasta qadar Alle weeyaan ilaahay ayaana mahad leh balse Yuusuf ayaa hadal ku tuuray oo dhahaya hooyin 3 saac iyo bar kadib waxaan arkaynaa Abufallah wax cunaya sidoo kalena soo bixistay iPhone kale kuna tuuray dhulka qaado haddii aad doonaysid inaad qaadato. Abu Sheekh ayaa dhahaya ma balaas ayaa raacsan balse Yuusuf ayaa la soo boodaya dhalinyaro suga wax ayaa ii sheegay inuu eber yahay. Saalim ayaa dhahaya waa iPhone 12. Cisaam ayaa u qaltaagaya dhahayana Max Miana waxaana ku celinay Yuusuf oo dhahaya waa eber. Saalim ayaa u sheegay inuusan ahayn Pro Max una kaliya yahay iPhone 12. Xamuud ayaa dhahaya wuxuu ahaado wax ma ku jiraan eenaha noo sheegina. Saalim ayaa u dhaartay. Daawud ayaa dhahaya dhalinyaro 400 Kuwait diinaar ayuu joogaa. Axmed oo banaanka ciyaarta ka jooga ayaa dhahaya waan qaadan lahaa haddaan booska ku jiri lahaa. Yuusuf ayaa dhahaya hadduu been yahay ka waran. Saalim ayaa magaca Alle ku dhaaranaya inuusan ahayn eber. Cisaam ayaa dhahaya wuu dhaartay Saalim wuuna og yahay. Yuusuf ayaa ka soo baxay boobaabinta oo qaadanay iPhone-ka wuuna la cararay. Saalim ayaa ku qalinay waa khiyaanay halka Abufallah ku dhawaaqayo noo fur waxaana la hor keenay tartamayaasha hortooda si uu u furo. Yuusuf ayaa ku dhahaya Abufallah naga foq iga raali noqo ayuuna dhahaya. Abufallah ayaa dhahaya waad u qalantaa ee fur. markuu furayna waxa ku jira nicle aad ayaa loogu camirtay ilaa uu iskiis iskaga dhaqaaqay. Abufallah ayaa u yeeray Yuusuf wuxuuna dhahaya gaajo ayaa haysa wuxuuna ku leeyahay qabo qorigan toogana kuwii ka dambeeyay inaad ka baxdo challenge-ga una aar naftaada.
saalim wuxuu leeyahay kan waa doqor ah u dhiibin yuusuf ayaa ku dhahayo abufallah kee doonaysa inaad togto wuxuuna dhahayaa abufallah ka fogow uun walaalkay wuxuuna bilaabay tuugashadiisii ilaa uu xarfaankan ay ku dhacday isagoona weydiinaya xaggee ay kaaga dhacday ku lahaa dhabarka madaxa lugta iyo meel walbaba saas ayuu noga baxay challenge-gii abufallah ayaana u sheegay saaxiibkan in isagu u soo diray yuusuf inuu togto abufallah wuxuu noo sheegayaa in xaalad caafimaad ay la soo dirsatay abusheekha ayna muhiim tahay inaan u naxariisno dadka si uu alle noogu naxariisto wuxuuna u sheegay inuu u hayo shamalaan biyo ah oo qabow laakiin waynu soo gaaraa halkan 3 saac iyo 45 daqiiqo kadib abufallah ayaa dhahaya ma samaynayo wuxuu masarbiis sameeyey inuu sugayaga maalin ama maalin barkeed ani waxaan ahay qof mashquul badan level 4 ayaa dhahaya maxaad u xiratay marka goloofiska wuxuuna dhahayaa si aysan ii qaniinin waadna ogaan doontaa wuxuu qaniiniisu yahay markuu ku qaniino halkaan ayuu kala soo baxaya shaygan la wado abusheekh ayaa dhahaya bakeela ku jira Soomahan wax uun weeye ayaa lagu dhahayaa abusheekh ayaa dhahaya qiimo kasta isoo bandhig waa iskaga baxaya waxa lagu dhahayaa kaliya ka waran shamalaan biyo ah wuxuuna ku ceersanayaa maskan iyadoona meeshii ay ka dhacday kala carab ugu dambeynaysa ceersi badan kadib waxaa tartanka ka baxay Daawud sidoo kale waxaa faar loo fiirinayaa xarfaankan kale taasoo ugu dambeyn la xaqiijiyay inuu ka baxay qobaabinta gududan taasina ku macsalaamay challenge-ga waxaana isku soo haray 3 tartame waqtiguna waa mid ku sii saqaya habeenimo wuxuuna noo sheegayaa in kaliya ay sugayaan in mid uu guuleysto abufallah ayaa u imaanay ayaga isagoo ku dhahaya markaan daacad iga tahay inay idinka kaliya soo haray abusheekha maxaad ku samayn doontaa dad guuleysto wuxuuna dhahayaa wadankayga waxay weydiinayaan magdhow military maadaama aan wadankayga Syria aan ka maqana muddo dhan 12 sano markaan bixiyo magdhowgaas waxaan rabaa inaan soo arko hooyaday taasoo aan arag muddo dhan 12 sano wuxuuna sii raacinayaa taas ayaa shayga ugu weyn markaan waa Cisaam wuxuuna dhahayaa daacadii dhalinyaro waad ogtihiin inaan dhammeeyo jaamacad oo iga harsan tahay 2 sano waxaana doonayaa inaan ku shaqaysto kan ugu dambeeya waa Xasan isla su'aashii ayaa la weydiinayaa wuxuuna dhahayaa marka hore qayb ayaan tabarucayaa abufallah ayaa dhahaya makaarun baa tabarucaadkaas alle ayuu ugu dhaaranayaa wuxuuna sidoo kale sheegayaa inuu doonayo inuu ku maalgashto insha Allah 5 saac oo challenge welina lama helin ku guuleysaa tartanka markaana 6 saac abufallah ayaa noo sheegaya in wili xaalku sidii yahay 7 saac ayaa la isla gaaray markaan waxaana ku sii dhownahay 8 saac oo si guud u soconayo challenge-gu abufallah ayaa inoo sheegaya in yar la sii adkeenayo waxaana la soo gaabiyey gobaabintii saacadu markaan waa 8 saac oo challenge-gu soconayo waxaana arkaynaa kuwaanoo halkaan ku casheynaya waxbay isla dhacayaan ajaab shaqo balse tartamayaasha ayaa cuntadiisii calamadeeba maya kaa noo soo dhiiba balse abufallah ayaa shamalaan biyo ah u soo taagaya qalbada tabtay runtii 8 saacadood uu tartanku socday waa la isla dhaafay hadda waa 9 saac abufallah ayaa noo sheegaya in la ciyaarayo ciyaarta maqaska taasoo noqonaysa tii ugu weyn taariikhda aadanaha kaas uu heliyo ku guuleystuhu $50,000 noloshiisa ayaa isbedelaysa wax walbana way isbedelayaan Cisaam ayaa dhahaya waxaan marka hore dheelaynaa ciyaarta kilobamiya kadib waxaan dheelaynaa ciyaarta maqaska haddaba haddaadan aqoon ciyaarta kilobamiya waa ciyaar laga dheelo gacmaha gaar ahaan faraha kan soo taaga fara ka duwan kuwa kale isaga ayaa ka baxay tartanka waa bilaamatay balse tii koowaadba waxaa tartanka laga ciribtiray Xasan waxaana isku soo haray markaan waa Cisaam iyo abusheekha ayaa dhahaya midkeenba midka kale wuxuu rajeynayaa wanaag oo dhan abufallah ayaa dhahaya waxaa soo gaarnay daqiiqad wadna ku kur kan nasiibka leh ayaa guuleysanaya allahna ha barakeeyo guuleystaha anise waxaa la jira abusheekha 1 2 3 way bilaamatay waxaan arkaynaa hadalkii uu yiri abusheekha ee ahaa inuusan aadin karin wadankiisa hooyada Syria ilaa uu bixiyo magdhowga laga rabo ee militariga uusana arag hooyadiis iyo wadankiisaba muddo dhan 12 sano halka aan arkayno dhigiisa Cisaam oo dhahaya in muddo 2 sano ah uga harsan tahay inuu ka qalan jibiyo jaamacadda ayna fiican tahay lacagtaas inuu haysto si uu isticmaalo kadib qalan jibintiisa wayna sii socotay ciyaartu ilaa ugu dambeyn uu ku guuleystay abusheekha dabaaldega farxadda guushiisa ayaa ka bilaabatay goobtii saaxiibadiisna waa mid ay aad ugu farxeen guushiisa maadaama hadalkiisu ahaa mid qalbiga taabanaya waxayna geliyeen laabta halka isagana uu sujuuday alla subxaanahu wa tacaala ugu dambeynna 10 sano ka bacdi wuu tegi karaa wadankiisa hooyo ee Syria wuuna arki karaa hooyadiis waa dareen aad u qurux badan runtii dhankaygana aad ayaan ugu farxay guushiisa waxaan arkaynaa abufallah oo dhahaya waatan farqiga u dhaxeeya mid neebsan la guushiisa dartiis iyo guuldareystaha waxay ahaataba nabadgelyo korkiina ha ahaato saaxiibayaal